geeridii Raila Odinga oo khilaaf qowmiyadeed iyo mid siyaasadeedba ka dhex abuurtay Kenya. Geerida Raila Odinga hogaamiyihii mucaaradka Kenya iyo mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan ee dalka Kenya ayaa dhalisay khilaaf qowmiyadeed iyo mid siyaasadeed oo gudaha Kenya ka dhex qarxay. Hadal muran badan dhaliyay oo ujeediyay barasabka countiga Nyeri ayaa sii huriyay xiisadda kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ku faraxsan yahay geerida Raila Odinga isla markaana uu mahadcelinayo malagii dilay. Hadalkaasi ayaa si weyn uga careysiiyay shacabka Kenyaanka ah gaar ahaan taageerayaasha Raila Odinga ee ka soo jeeda qowmiyadda Luo, taasoo keentay kacdoon, mudaharaadyo iyo falcelin adag oo siyaasadeed. Guddiga barasabyada Kenya, xubno ka tirsan baarlamaanka iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa si adag u cambaareeyay hadalkaasi, iyagoo ku tilmaamay mid kicinaya nacayb qowmiyadeed isla markaana dhaawacaya midnimada iyo wada noolaanshaha shacabka Kenyaanka ah. Kadib cadaadis siyaasadeed iyo mid bulsho oo xooggan, barasabka Nyeri ayaa laga saaray xubinnimadii guddiga barasabyada dalka, halkaasi uu hore uga ahaa gudoomiye ku-xigeen. Dhanka kale, qoyska Raila Odinga ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay si weyn uga xumaadeen hadalka iyo ficilka anshaxa ka baxsan ee uu muujiyay barasabka, iyagoo ugu baaqay dowladda Kenya inay qaado tilaabo sharci iyo mid anshaxeedba oo lagaga hortagayo hadallada kicinta iyo nacaybka ku dhisan qabaa'ilka. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya, Rigathi Gachagua ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay abaabulka ololaha iyo hadallada nacaybka ah ee ka dhanka ah Raila Odinga iyo qoyskiisa. Warar ka soo baxay ilo siyaasadeed oo sare ayaa sheegaya in Gachagua uu door muuqda ku lahaa kicinta, mudaharaadyo iyo nacayb qowmiyadeed, taasi oo sii horisay xiisadii ka dhalatay geeridii Raila Odinga. Sidoo kale, waxaa la xasuustaa in Rigathi Gachagua uu hore u diiday ka qaybgalka aaskii qaran ee loo sameeyay Raila Odinga, arrintaasi oo loo arkayay tilaabo muujinaysa khilaaf qoto dheer oo siyaasadeed iyo qowmiyadeed oo ka dhex jira labada dhinac. Eedeymahan ayaa sii kordhiyay muran iyo kala shaki siyaasadeed oo ka dhex abuurmay madaxda sare ee Kenya, iyagoo dadka falanqeeya siyaasadda ay ka digayaan in khilaafkani uu waxyeeleeyo midnimada qaran iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka. Geeridii Raila Odinga ayaa hadda isu beddeshay imtixaan adag oo ku saabsan wada noolaanshaha qowmiyadaha Kenya, iyadoo shacabka iyo madaxduba ay si xooggan uga doodahayaan sida dalka loogu ilaalin karo xasiloonida iyo is-ixtiraamka siyaasadeed ee uu Raila sanado badan u halgamahayay.